munaasabadani lagu maamuusay maalinta afkeena hooyo ayaa xalay waxaa lagu qabtay xarunta dalka looga haramiyay Villa Soomaaliya waxaana u joogay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa goobjoog ka ah goobta munaasabada ka dhacaysay waxaa sidoo kale ku sugnaa goobta aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ka kala yimid dalalka caalamka Muqdisho imiday munaasabadani qiimaha ku leh qof walba oo ku hadla afka qiimaha badan ee Soomaaliga ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ka waramay qiimka maalinta afka hooyo waxaana dadkii goobta ka hadlay kamid ahaa Caasho Geela Diiriye iyo waliba Axmed Faarax Idaaja iyo waliba rag kale oo miisaan ku leh bulshada Soomaaliyeed mid kale waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud anigu ma dhageysan maalinka ugu horeysay tasriixiisa laakiin qof baa wuxuu ii sheegay wuxuu yiri xasan wuxuu yiri warqada aan af Soomaali ku qoray in xafiiskayga timaada akhriin maayo waa wax weyn weeye inagu waxa haddaan Soomaali nahay waxba inagu dhacayo dee meesha aan tagnay waad garanaysaan marka jabku ma aha oo keliya inaad macnaha dawlad weydayaan haddaad niyadda ka jabto baa ugu daran niyaddaanu ka jabsannahay weli anigu marka anigoo ku hadlaaya guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u ballan qaadayaa kaalinta aan uga jiro in ay dastuurkooda dib u eegistiisa ay ku heli doonaan af Soomaali muxuu ahaaye dhammaystiran in qof kasta lagu gaarsiiyo luqad dhammaystiran af Soomaaliya ugu soo baxo laakiin Ingiriis inta laga qaado aan af Soomaali lagu bedelin madashu waxay ahayd mid aad u dagan qof walba oo goobta ku sugnaana waxa uu qaadanayay hawada carafta badan ee caasimada ka dhacaysay iyadoo kooxda Banaadir baan ay ku soo bandhigeen sugan ka turjumaysa maalinta afka hooyo iyadoo madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Soomaaliya goobta ka dhaanteeyeen intaasi kadib waxaa la gudagalay khudbadaha waxaana ugu horeyn goobta hadalla ka jeediyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud luqaddu dad badan waxay u haystaan raali ay aadaan oo maxaa khubarada hadii aan maxaa ahay aan wixii aad qabiilka ku aydeen aan dhinac mare yani qaab oo isgaarsiino la isku warramo la isku fahmo oo bas inay ku egtahay laakiin waa ka duwan tahay inta dhaqankii diintii yani mujtamacani wixii maxaan ku raadayay oo lahaa qiyam iyo wixii uu dhaqan lahaa iyo dhamay luqaddu xambaarsanta marka in la dhaqan geliyahay afkii la isku fahmay iyo kalmadihii Soomaaliga la isku adeegsanayay oo kaliya ma ahan marka caruurteena marka luqadda ku ababino oo ku barbaarino oo aan barno oo aan u qurxino waxay tahay intaasna waan barnay waan u qurxinay waan jeclaysiin dhaqankii aan jeclaysiinay maxaan ku yiraahdaa diintii aan jeclaysiinay qaab nololeedka ummadeenu ay lahayd ayaan barnay ama aan jeclaysiinay marka wax badana xigmad badana ku jirta marka Ilaahay idinkiis waan dadaalaynaa in maxaan ku yiraahdaa luqaddu ay soo noqoto afka Soomaaligu booski mujtamacan uu ku lahaa in uu soo istaago oo dib u soo yeesho waa ka shaqeynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadiyado qiimo badan guddoonsiiyay dhagiisa wadanka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele
hadallo qiimo leh ayuu goobta ka jeediyey madaxweynaha waddanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele. qalbiga ayaan ka hadlayaa amaan aanan mutaysan baa ii samaysaan biladaanan yani isleeyahay malaha waa lagaaga fiicnaa baan ayaad isiisaan wax aad ii taabanaya wey dadka Soomaaliyeed afka Soomaaliga ah ku hadlaya dhaqanka Soomaalida leh hawiyadda Soomaaliyeed leh ayaan ka mid ah waxa aan Soomaali aan u sameeyo aniga ayaa isku sameeyay waxa aan u qabto aniga ayaa isku qabta yaan aaminsanahay haddana fursad markaan u helo in aan la kulmo aan dhegaysto waxa ay iga qabaan aniga mas-uul baan ahay meel aanan arrin Soomaaliyeed lagu hayo kamana sii jeesanay itaal meel uu dhigaba waan jawaabayaa ama waan doodayaa ama waan hadlayaa ama waan dhiibayaa waxa aan hayo caawana habeen gaara weeyaan aniga taariikhi leh. caasimadda Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya waxa ay martigelisay maalinta maamuuska afka hooyo 21 Febraayo waxaana Muqdisho laga dhisi doonaa Academy Afka Soomaaliga ee Geeska Afrika waana mid ka mid ah guulaha uu gaaray dalka. Maxamuud Cusmaan Bulxaan TV-ga caalamiga Universal Muqdisho.